السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال إيرادا آمنة أويس وحان فيديو دولة شرفت البدن مدحوينه محمد عبد الله فرماجة رئيس الوزراء كل مدحدي شعبك الصومالي فيديو أدرا وحان قبل الصومالي وكنا الوطن كباكستان قاصة عاصمة إسلام آباد وحان هاي قبل كسو بورستي نين باكستان وطن السعودية العربية لبض بش تضبات كودي دي waxaan u dhalay 8 ciyaal afar iga dhintay afar aan haysto 2017 wadankan keenay sharcigi iyo deganaanshaha aan Sacuudiga ka haystin oo iga kansalay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar dama waraysigeeda aan bixin hadii Ilaahay ka raali noqon laakiin hadartan waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaataysanahay wadanka markuu keenay sharci wuu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi waxaan u cabday safaaradda waxay dhaheen waxaan ka qaban karnaa malaha ninkan viisada wuu diiday asaga ka taatay waxaan rabaa in dawladda ii istaagto nin shakhsi intuu isoo wado wadanka ay keeno sidoo rabo ila dhaqmo dhibaato badan ii geysto haddana dhankii sharciga ii diido deganaashadeedii iga kansalay iqaamadeedii iga kansalay halkan si dhibaato badan oo ii geysto hadartan waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto viisada waa iga dhacday viisa ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shakhsi ah maamo ah in aan dawlad la xisaabtamo ama aan istaag qof shakhsi ahay ma istaagi karin dawlad horteeda uma dhigi karin maxaa sidaan igu qabatay waxaan rabaa dawladda sharafta badan inay ii istaagto ninkan shakhsiga sidoo rabo inuu dhaqmaa wadankiisa dhexdiisa in la iga qabto viisada la iga qaado xaqayga xuquuqayga la iga dhiciyo muwaadin Soomaaliya ahay in shakhsi soo wato wadanka ay keen asiga madaxweyne ee sidoo rabo ii galo ayaan daro waxaan rabaa in la ii istaago madaxdeeda inay ii istaagto dhibaatadaasaan qabaa tan ugu weyn ay tahay sharciga xaqiisa in la iga caawiyo xaqayga la iga qaado ninkan dhibaatada ii geystay in lala xisaabtamo albaab walba ee garaaca dawladda Pakistan lala fadhiisto xaqayga la iga dhiciyo taasaan u baahanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.